yaha ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guute Maxamed Cismaan Ibrahim Xulun oo safar shaqo ku maray gobolada bariga Soomaaliland ayaa wuxuu soo gaaray degmada Garadeg ee gobolka Sanaag taliyaha safarkiisan ku weheliyaan saraakiilta sare oo ka tirsan ciidanka asluubta ayaa markuu soo gaaray degmada Garadeg waxa uu saaran sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka asluubta degmada Garadeg ay warbixin ku siiyeen isla markaana gobolka ku soo dhaweeyeen taliyaha ciidanka asluubta gobolka Sanaag Ashaan la sare Maxamed Digaale Siciid iyo taliyaha ciidanka asluubta degmada Garadeg Dhamme Xuseen Yuusuf Barre ugu horeeyna halka waxaa ka hadlay oo ka warbixiyay xaaladda xabsiga iyo ciidanka taliyaha ciidanka asluubta degmada Garadeg Dhamme Xuseen Yuusuf Barre hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa runtii ciidankan waa ciidanka asluubta degmada Garadeg waxa weeyaan wax qabadkiisa iyo hawshiisa iyo barnaamijkiisana waxa weeyaan waa wax aad magaraysaa ishaadu ay arki doontaa insha Allah Kariim sanadadii hore kale iyo ciidamadii hore kalena ay ka jawaabeen oo hore barwar jiro hore oo noo yimaadeen ka jawaabeen adiguna ma sha Allah haddaad maanta noo timi indhahaagaan kugu tusi doonaa insha Allah Kariim waad noo soo furtaa dirto maxay tahay dheer oo xabsiga ku soo wareegayo 250 kiiloomitir sidoo kale isaguna waxa halka ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta gobolka Sanaag Ashaan la sare Maxamed Digaale Siciid hadaladiisina waxa ka mid ahaa sida tan Sanaag xabsiga dhexe ee degmada Ceerigaabo waad indhahaaga ku arki doonto aad baan u faraxsanahay maanta maadaama taliya noo timi waxa farxad noo ah inaad nala aragto wixii aanu ciidanka asluubta ee gobolkan ka tirsan uu qabtay waana xabsiga ugu horeeyay oo u dhigma aanu seenay ha gaadho xabsiga labaad xabsiga weyna Mandheere ha gaadho iyadoo ciidanka asluubta uu bilaabay walba wax laga bilaabo dhulka ma jirtin xabsi hore ma jirtin waa mid dhulka laga qaaday oo 97 ayaa la bilaabay maanta wuxuu marayaa oo higsanaya inuu xabsigii labaad uu noqdo sida ku qoran xabsigii bariga noqdo waxaanu ku soo wareejin doonaa qaybihiisa ciidanka asluubta baa sameeyay ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cismaan Ibrahim Xulun oo isagoo xariga ka jaray dhismayaal cusub oo ay hirgeliyeen ciidanka asluubta isla markaana kuwa kalena u dhagax dhigay ayaa ka mahadceliyay waxqabadka ballaaran ay soo bandhigeen ciidanka asluubta degmada Garadeg isagoo arinta ka hadlayeen hadaladiisa waxa ka mid ahaa sida tan waxa sameeyeen waan arkaa ilaahay in baa laga helaa ciidan sidaas wax u qabanay alxamdulillah rabbil caalamiin waxana amaanta leh madaxdii xukumaysay ayaa amaanta leh ilaa askari shaqeynay gacanta ka shaqeynayay ilaa dablaha ilaa taliyaha gobolka inta u dhaxayso baa amaantaas leh meel walbana waxa weeyaan magac wuxuu leeyahay waxa leeyahay ninka meel loo dhiibay oo mas'uuliyad la saaray waa inuu wuxuu qabtaa inuu fadhiyo ma wuxuuna inuu qabtaa soo dhaweynta taliyaha ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliya iyaguna waxa si weyn uga qayb qaatay maamulka dawladda hoose xubnaha madaxda xildhibaanada golaha deegaanka waayeelkii waxgaradka degmada Garadeg waa Madar Sanire muqbaahiyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Garadeg